diimaha iyo wax inta isku qasqasto wax dhisata yahuudiyada inbuu ka qaatay kristan inbuu ka qaatay islaamka inbuu ka soo qaatay dhaqankii qabiilkooda iyo wixii xeerarkay lahaayeen qayb buu ka qaatay waxa intuu isu geeyey ayuu yaasiqa u bixiyey kaasuu ku xukumay nidaam adagoo saarim ah maamul aad u adagoo idaariya buu waddanka u sameeyey wuxuu ku caanbaxay waxay yidhaahdaan dagaalyahanadiisu iyo dagaaladu qaadi jiray waxay caan ku ahaayeen weerarka degdegta ah waxa la yidhaahdo yani waxaa la yidhaahdaa fardaha leeday ku fuuli jireen baa la yidhaahdaa si loo fudaydiyo farasku aanu wax culaysa u dareemin dabeetana wuxuu lahaan jiray baa la yidhahdaa kumaankum ciidan ah oo fardaha leeda ku fuula oo ka dagaalami kara kumaankum mayl in ku dhadhow marka waxay dhahaan alxarb alkhaatifa waxaan maraykanku iminka yidhaahdo xuruub khaatifka ee laga gaadhsiiyo meesha la dumiyo taas buu isticmaali jiray baa la ydhahaa wuxuu lahaa nidaam kala dambayn oo aad u adag wuxuu ciidankiisa ku tababaray duruufta qaasiga ah inay aqbalaan good training baa la siiyey ah nolol rafaada inay aqbali karaan wuxuu kaloo samaystay hogaamiyeyaal askareed military janana ah oo dunida caan ka noqday rag waaweyn bato biji holaako yani waa qaa'id la wada yaqaan bayden waa quwaadii uu lahaan jiray ninka kani waxay ahayn dagaalyahano aad ugu caanbaxay dagaalada wuxuu aaminsanaa bay yidhaaheen mabda'a alqutb alwaaxid aqtaab badan inaanay dunida ka jirin dunida in nin qura ka taliyo dadka dunida joogaana inay ninkaa ka dambeeyaan waxyaabuhu caanka ku ahaa waxa ka mida bay yidhaahdaan ballanka ma aqoon baa la yidhi hadduu cid dawlada heshiis la galo inuu la gala iyo inaanu la galin qiimo badan uma kala dhexaynin sideedaba ragga xoogga waaweyne ballanka ma jecla haddii aan aakhiro qofku aanu ka baqaynin iyo rabbaa ku xisaabaya qiyaamaa jira iyo waa la isqabsanayaa sideedaba ninka xoogga weyni ballanka marmarsiiyo uma waayo lagu buriyo waxaanu isku dayayaa markaa galabta inaan soo bandhigo haddii ay suurtowdo burburkii dawla alkhawaarzimiya iyo si uga takhallusay xagguu ku socday filosofigiisu muxuu ahaa ma khilaafada cabaasiyiintu marka hore ku socday sidaa waa la sheegaa laakiin waxa macruufa uun ninka kani si kasta uu fakerayay dawlad xooggan baa dhinaciisa iyana jirtay الدولة الخوارزمية والدولة دي حكومي جرتي أفغانستان أوزبكستان تركمانستان كازاخستان طاجكستان باكستان هي قيب إيران كميدة انتاسو يسكوها يستي الدولة الخوارزمية ومسلمة عاصمة ديدنا مقالة أورجندا الله يرادو أورجندا تركمانستان ميكو تالي عاصمة أي هالكا واحد لبدا ودن وحكا دحيي حسن الجوار si nabadgelyaa in loo wada deganaado jankiskhaan laftiisu bariga xasilintiisa iyo dawladdiisa dhisideedii ayuu mashquul ku ahaa china iyo dee kuuriya iyo indho yaroo dhan inuu ka takhalluso laakiin wakhtiyada ka mida unbaa waxaa dhacay waxaan laba filaynin isna marmarsiiyo u noqday waxaa dhacay dawla alkhawaarzimiya magaalo otrar la yidhaahdo oo bariga ku taalla xagga china u dhow ninkii xaakimka haystay labada dawladood maadaama heshiiskani uu jiray tujaarada ayaa si fiican ugu kala socotay baac mushtarkaa mari jiray xaakimkaasaa wuxuu qabtay tujaar mongolianisa tujaar maguulkii ka mid a ama tataarkii ka mid a dabeetana tujaartii oo dhan buu laayay waa ballanfuriyo sida u taalla taarikh yahanadu sababo badan bay sheegaan qaar baa yidhaha jawaasiis bay aheen qaar baa yidhaha maye isagaaba cid hoosta ka laysa u soo diray waxaasi waa iska mala awaallo qaar baa yidhahdeen radin baa jirtay oo marka hore iyagu wax boobeen dabeetana waa loogu abaalguday waxaasoo dhan waa wax iska qaldan bale waxaan odhan karnaa waxay khilaafsantayba xadiidkii nebigu abu daawuud xadiidkii warinayay sheekh alalbani xasan ku tilmaamayo
النبي يقول عليه الصلاة والسلام دعوا الحبش ما ودعوكم واتركوا الترك ما تركوكم. وحديث حسن النبي كالسوغان نبي عليه الصلاة والسلام ورحبشده اسكت دايا انت يدين دينيسو حبشده انت يدين ديسو يدين اسكت دايا. waxaa kaloo nabigu xadiidkaasi ku tilmaamay dadka tarkiga la yiraahdo ama turkiga la yiraahdo. turkigu waa qabaa'ilkan bariga oo dhammi cidii ay ka soo jeedeen markaas ma aha atraktan oo qura atraktan asalkii yana xaggaas ka yimaadeen. taariikhyahanadu waxay dhahaan kuwan oo dhammi turkigaas ku jiraan. atruku tarka ma tarakukum ma dhicin. Genghis Khan waraaq buu soo diray وبورطويد خوارزم محمد بن الخوارزم شاه نكي لورن جيري مدخدا ka ahaa uu soo diray isagoo la nimankii laayay tujaarta gacanta halaga soo galiyo. boqorkan qaybta muslimka haystaana wuxuu dhimay anaga maxkamadaynayna hadii ay jirto xagga iyaga lagu maxkamadaynaya. waa sida taariikhyahanada qaar sheegaan. dabeetana umay cuntamin Genghis Khan wuxuu yidhi cid buu soo diray wuxuu yidhi hala soo dhiibo. boqorkii xaggan haystayna boqor dhul badan qabsaday oo laftiisa aan isbidistu ku yarayn buu ahaa. ninkii uu soo dirayba wuxuu yidhi isagana hala dilo. awal waxaa la isku haystay rag tujaaroo la laayay oo halay keeno iyo halka lagu xukumo la isku hayay wati Afghanistan oo kale. dabeetana waxa la yiri ma kiina wuu dilay. Genghis Khan marka kan wuxuu diyaar garoobay marka dagaal waa iclaan harb. labadii dawladood dagaal baa loo diyaar garoobay. Genghis Khan ciidan aad u tiro badan buu soo kaxaystay. محمد بن خوارزم شاه ninka la yiraahdo dawladda tan xukumaana isna ciidan buu soo urursaday magaaladii Arjanda uu ka yimi isna barigu u soo kacay. laba ciidan aad u tiro badan baa la iskala hor yimi. waxa la isugu yimi webiga Siixoon taariikhyahanada muslimku ay yiraahdaan Sardariya qolada kalena ay ku tilmaamto waa dawladdan Kazakhstan la yiraahdo dhexmara. goobtaas labadii ciidan isugu yimaadeen. dagaal adag baa dhex maray. muslimiinta oo qura 20,000 baa ka geeriyooday baa la yiraahdaa dagaalka kan. 20,000 oo muslim ayaa lagu waayay. Tatarka ama Mongolianiskana waxa la yiraahdaa in ka badan ayaa iyagana ka dhimatay. 4 maalmood baa la isjafayay oo dagaalkani socday. dabeetana markii uu dagaalku adkaaday ayaa dib loo kala yara gurtay. labadii ciidan dhimashadii baa ku badatay dhaawacii baa ku tiro batay dib baa loo kala gurtay. waqtigii dib loo kala yara baxay ayuu boqorkii Muhammad ibn Khawarizm Shah wuxuu u fakeray fikrad qaldan taktiik qaldan raga badna waxay yiraahdaan akhlaaqiyan qaldan oo ah inuu insaxaab sameeyo goobta inuu ka guuro. dabeetana awaasimta magaalooyinka waaweyn inuu ciidamada dhigto ilaashado isaga iyo ciidankiisa inta ugu badan caasimadii inay ku noqdaan. caasimadii markaa galbeed waqooyi fog bay ka xigtaa. meesha la isku dilaya waa ka durgsantay. ciidankiisa dib u ka haystay. wuxuu kala ku talagalay inuu ciidamo kala soo urursado badsado. laakiin waxa jirta isaga iyo muslimka isugu dhow yihiin colaadaha dhex taagan iyagana. khilaaf al-Abbasiya xageeda ciidan kama helayo. dawla salaajiqa waxba kama helayo. qawriyiinta waxba kama soo helayo. طائفة الإسماعيلية waxba kama helayo. hareerihiisa duwalka ka xiga la iskuma fiicna. أطراف الدولة ciidamo saasiya kama soo helin waayo cidii hareeraha ka xigto dhan waa la sayay.
muslimku hadduu ishayana ilaahay qur-aanka wuxuu ku leeyahy walaa tanaasacuu fatafshaluu watadhaba riixukum wasbiruu ina allaha maca asaabiriin rabbi wuxuu leeyahy subxaanaه wa tacaala ha isqabanina oo haddaad murantaan oo isqabataan oo nisaacu dhexdiinna ka dhaco waa fashilaysaan dowladnimadiinna iyo xooggiinnuna waa tegayaa baa ilaahay yidhi wasbiruu ina allaha maca asaabiriin baa ilaahay leeyahy bini aadam hadduu wax wadaago xagxagasho iyo isqabasho lama waayo laakiin ilaahay wuxuu leeyahay sabirka ogaada laba hadday isqabataba aan kala yaacnadu waxba ma tarto waa dhaqanka ilaa hadda muslimka dhex yaallaad mooddaa laba hadday isqabato wadaad iyo wabiinba isku dar laba wadaad hadday masaajid isku qabtaa waa la kala guuraantee cidda kalena maxaad u malayn wadaad iyo wabiinba isku daro dhaqanku wuxuu u yaallaa qaaba haddii laba muranto in la kala yaaco caalamulislaami qaabkaasoo kale u yaallay bale inay iscaawiyaan daaye dagaalada tataarku marka ay yaro damaan iyagaa weerarka isku sii qaadi jiray midba ka kaluu is odhan jiray inta aad wax ka sii xoraysatid nebi moxamedna calayhi salaatu wasalaam axaadiista ka sugnaatay ee saxiixu muslimka ku taalla rabbi markuu wax weydiistay ilaahay wuxuu u ballan qaaday inaanu ummadda muslimiinta cadow ka xoog bata oo bannaysta walow dunidoo dhammina haysu tagtee inaan marnaba alla ku sallidaynin ilaa iyo inay iyagu yihiin kuwa isjafaya ee iniba inta kale gumaadaysa mooyaane waa xadiid nebi moxamed ka sugan calayhi salaatu wasalaam boqorkani wuxuu ka fekeray markaa carruurtiisii iyo reerihiisii iyo ciidankiisi iyo wixiisii inuu aad u ilaashado oo aan dhibta badani soo gaadhin haddii uu ciidamadii meeshii kala baxay jenkis khan maxaa laga rajaynayaa marka hadday u bilaabantay shaqadiisii rasmiga ahayd marka jenkis khan ciidamadiisii buu soo dareeriyey uzbekistan buu soo galay wuxuu yimi cawaasimta muslimiinta wakhtiga kan dunida magaalooyinka ugu waaweyn ah yacni taariikhdii hore marka la eego dowladahan reer galbeedka iyo caasimaadkoodu waa shalay shalayba ayaanku odhanaya indiya goormu tegayay ingiriisku waa ku axad britaniyin ka soo warramaya wuxuu yidhi magaalo ku taalla indiya muslimiintu markay xukumaysaya murshadabaad baa la yidhahdaa ayuu tegey markaasuu wuxuu soo diraya uu leeyahy murshadabaad baa ka weyn london kana dhaqaalo badan kaliba oday kaloo faransiisaa tegey markaasuu yidhi magaalaan tegey godadkii dahabkee dunida aad mooddo ina iyada to lagu guray idan shalay ahayd baris iyo london iyo waxa kani cawaasimtii dunida wakhtigaa ugu waaweyneed kuwaasee muslimku degan yahay buu ahaa bukhaari markaa waxay ka mid ahayd magaalooyinka ugu waaweyn 616 hijiriyada markay maraysay ayuu ku sameeyey xisaar magaaladii buu la go'doomiyey magaalada waxaa jooga ciidan badan oo uu ninkii kaga tegey ciidamadii uu qaybqaybinayay oo meelahan kaga tegay ciidan badan baa jooga laakiin dadku qalbigay ka dagaalamaane qofku hadduu qalbiga ka jabo waxaad mooddaa inaanu wax badan iska celinin waxay dalbadeen dadkii meesha joogay iyo wixiiba inay isdhiibaan laakiin muqaabil ilamaan calanka cad baanu taagaynaa laakiin nabadgelyo hana la siiyo dadkii badh baa caynkaa yidhi badhna waa diideen magaaladii markay isqabatay qolole aan isdhiibno ciidankan intaa leeg boqorkeenniba tegiya oo iska celin kari mayno iyo qolana aan isdifaacanay noqdeen waxaa xoog batoo tiro batay qoladii lahayd aan isdhiibno qoladii lahayd aan isdifaacno qalcad weyn oo magaalada ku dhex taalla ayay galeen dabeetana ciidanka intii qalcaddaa gashay waxaa ku darsamay culammadii iyo fuqahadii iyo dadkii waxgaradka ahaana qalcaddii bay ugu tageen dadka intii ugu tirada badnaydna waxay idhahdeen ma tataar baa la iska celin karaya aan isdhiibno way isdhiibeen jenkis khan
dhaqamadiisii uu yaqaano markaa ku dhaqma qoladii isdhiibtay wuxuu yidhi ammaan baan idin siiyey ee maxaan samaynaynaa markaa qolada kalean weeraraya albaabaday u fureen magaaladiibuu soo galay qoladii isdhiibtay wuu iska daayey wuxuu yidhi idinku rag fiican baa tiina waa isdhiibteen haddaba dagaalkaynu wada gelaynaa qolada kale ayla weeraraysaan waxaa bilowdaan dhufaysyada iyo khanaadiqda iyo waxaan ay qoteen iyo meelaha kan idinkaa kala garanaya ila dumiya